Soo dhawaada daawadayaal. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa dhagaxaanta. Waa hubaal in aad maalintii aragto marar badan dhagaxyo kala duwan. Si aad u kala soocdo dhagaxaantaas, fadlan daawo muuqaalkan. Waa maxay dhagax? Dhagax waa shay ama walax adka ah oo dabiici ah, kaasoo ka samaysmay macdan kala duwan oo isu tagtay. Dhulka qaybtiisa sare waxa uu ka samaysan yahay dhagax. Kala duwanaanshaha dhagaxyada waxaa sabab u ah macdanta ay ka samaysan yihiin oo kala duwan. Daawade, waxaa jira muuqaal hore oo aan uga hadlay macdanta. Haddii aad daawan weli, fadlan soo daawo. Cilmiga barashada dhagaxyada waxaa loo yaqaanaa petrology. Saynisyahanka bartana waxaa loogu yeeraa petrologist. Si guud, dhagaxyada waxaa loo kala qaybiyaa 3 nooc oo kala ah: igneous, sedimentary, iyo metamorphic. Igneous rocks waa dhagax ka samaysma qaboobidda iyo adkaanshaha dareeraha magma ama lava. Magma waa dareere ama dareere u eke oo ka kooban macdan, kaasoo dhagaxyada ay ka samaysmaan. Lavahana waa magmihii markuu banaanka u soo baxo. Igneous rocks, iyadoo la eegayo goobta ay ku samaysmeen, waxaa loo qaybiyaa 2 nooc oo kala ah: plutonic intrusive rocks iyo volcanic oo loo yaqaano extrusive rocks. Plutonic ama intrusive rocks waa dhagax igneous ah oo ku samaysmay dhulka hoostiisa, kaasoo ka samaysmay magma. Tusaale ahaan, dhagaxa loo yaqaano gabbro, diorite, granite, iyo pegmatite. Volcanic ama extrusive rock waa dhagax igneous ah kaasoo ku samaysmay dhulka korkiisa, kana samaysma lava. Tusaale ahaan, basalt, andesite, rhyolite, pumice, iyo obsidian. Aan u nimaano nooca labaad ee dhagaxaanta, sedimentary rocks. Sedimentary rock waa dhagax ka samaysmay qurubyo yaryar sida burburka dhagaxaan horay u jiray ama haraadiga noolayaal horay, kuwaasoo isugu ururay goobo cayiman sida badda gunteeda ama meelaha biyuhu fadhiistaan. Sedimentary rock, iyadoo la fiirinayo asalkooda iyo qaabkay ku samaysmeen, waxaa loo qaybiyaa 2 nooc, kuwaasoo kala ah clastic sedimentary iyo non-clastic sedimentary. Clastic sedimentary rock waa dhagax sedimentary ah oo ku samaysmay qaab physical ah sida weathering process. Tusaale ahaan, breccia, conglomerate, sandstone, iyo shale. Non-clastic sedimentary waa dhagax sedimentary ah oo ku samaysmay qaab chemical ah. Tusaale ahaan, limestone, dolomite, iyo jart. Nooca saddexaad ee dhagaxyada waxaa loo yaqaanaa metamorphic rocks. Metamorphic rock waa dhagax ku samaysmay isbeddel ku yimid dhagaxyo horay u jiray. Isbeddelkaas waxaa sabab u ah heerkulka
iyo cadaadiska oo ziyaada. Metamorphic rocks waxaa loo qeybiyaa laba nooc oo kala ah foliated metamorphic rocks iyo non-foliated metamorphic rocks. Foliated metamorphic rocks waa dhagaxyo ay ka muuqdaan xariiqtimo ama lakabyo sida gneiss, rhyolite iyo schist. Non-foliated metamorphic rocks waa dhagaxyo aysan ka muuqan wax xariiqtimo ah ama lakabyo ah sida hornfels, marble iyo quartzite. Haddii aan baranay noocyada dhagaxaanta, hadda waxaan ka hadlaynaa saameynta isku leeyihiin ama rock cycle-ka. Waxaan soo sheegnay waxa ugu horeeya uu dhagax ka sameysmo in ay tahay magma. Magmahana uu yahay dareere. Dareerahaas markii uu qaboobo uu adkaado waxaa sameysma dhagax loo yaqaano igneous. Igneous waxaa u furan saddex waji midkood in uu dhalaalo oo dib u noqdo magma, ama in uu dhagaxii igneous-ka ahay uu ziyaado kuleylka iyo cadaadiska kadibna uu noqdo metamorphic. Wajiga saddexaad uu noqon karo dhagaxa igneous-ka waa in ay ku dhacdo weathering ama erosion, cawaamisha wax bedesha sida roobka, qoraxda, dabeesha, kabacdina dhagaxii igneous-ka ahay burburo uu noqdo sediments, quruurax. Quruuraxi marka uu cawaamisha ku habbooneed helo uu adkaado waxa isku bedelayaa sedimentary. Dhagaxii sedimentary-ga ahay waxa uu noqonayaa haddii ay ku dhacdo weathering iyo erosion wuxuu noqonayaa sediments, uu burburayaa. Sidoo kale dhagaxii sedimentary-ga ahay haddii uu ziyaado kuleylka iyo cadaadiska wuxuu isku bedelayaa metamorphic rock. Metamorphic rock isagana waxaa u furan laba waji midkood in uu cawaamisha wax bedesho ay ku dhacdo kabacdina uu noqdo sediments, ama inuu dhalaalo uu dib u noqdo magma. Marka saddexdii nooc ee dhagaxyada waxay ku jiraan silsilad. Wuxuu noqon igneous-ka wuxuu isku bedelayaa sedimentary, sedimentary wuxuu isku bedelayaa metamorphic, metamorphic ya magma noqonaya, magmihii wuxuu noqonaa igneous rock. sidaas ayay saameyn isugu leeyihiin.